ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ku soo dhawaad channelka Surbiyaan maanta waxaan idin qabsanay cuntada quruxda badan oo ujeedin waxaan ka sameeyay waxay tahay halkan waxaan ku haystaa aubergine iyo basbaaska waaweynka ah, waxaan ku haystaa parsley fresh iyo basal baarteeni caadiga ahayd. intaana waxaan ka sameynaa cunto qurux badan. aubergine ama geedka beebelka ah ama black waa soo nadiifiyaa, soo dhaqaysaana u jarjaraa. marka caadi ma u jarjaraa, daarbi waa jarjaran kartaa, laakiin saan u sameynaa maanta daawasho wacan. mindida ayaan dhexda ka soo googooyay, kadib maqliga ama birdaawada oo dabka ii saaran ayaan dhinacii hoostahayd ee cadeed aan u saaray cabaar. kadib waa soo huuriyay, wax saliid kuma darin, waxba kuma darin, isaga kaliya iska saaray. kadib waa kusoo noqday. hadda waxaan sameynayaa inaan mataqaanaa aan dhinaca kale u gediyo. waa kaasaa wax yar uu soo shilmay, maasha allah. dabkaagu inuu dhexdhexaad ku ahaada la rabaa, inuu iska huuro oo tartiibtiisa u korso. isagaa biyo leh, biyihiisa isku karinaya. marka waa kaasaa cabaar kadib adigoo waa ka maqnaa ilaa muddo 7 daqiiqo ah. kadib waa kusoo noqday. waa kana saan mataqaanaa xoogaa yar usoo gudutay, brownka usoo noqday. hadda waxaan ku darayaa koob half biyo ah aan ku darsanayaa oo mataqaanaa aan rabo dhinacaas, maadaama soo hurtay dhinaca kale inuu ii soo bislaado. waan daboolaa, waana ka tagayaa. sidoo kale cabaaran ka maqnaa, haddana wuu soo huuray, waa kusoo laabtay. hadda dusha waxaan uga shubayaa saliid aan isticmaalayo waa saliidda olive ah baan isticmaalaa. wax yar aan ku darsanayaa, saliid kale ma waa olive waaye, weli wax kale kuma darin, biyo iyo saliid iyo geedkaas bas garanaya. hadda waxaan kusoo darsanayaa soy sauce aan kusoo daraa. soy sauce dark soy sauce aan kusoo darsanayaa, waa wax sauce oo loogu talagalay cuntooyinka in lagu daro. waxaan kaloo ku daraya waa barsaliga soo fresh aan soo tusay kiyo qalalan ayaa kusoo darsanaa. wax yar oo filfil ah baan dusha ka soo darsaday, wax yar oo cusbaan waa ku daray. waxaan kusoo daraa haddana liin dhanaan aan kusoo miirayaa. marka waxaan ku dhahay geedkan caadi ma ahna, ku dhahay maasha allah tabaarak allah waaye. waa qudaar, waa vegetable aan caadi ahayn, u dhigmaysa hilib, u dhigmaysa ukun, maasha allah tabaarak allah waaye. waana cunto aad iyo aad mataqaanaa faa'iidooyin badan u leh, caafimaad badan leh. marka waa kaasa oo inay ka faa'iideynayay. haddii aad diet ku jirtid aad cuni kartid, haddii aad ku jirin oo normal person aad tahay aad cuni kartid, qofna aan mataqaanaa aan diideynin. maasha allah tabaarak allah. hilibka aad uga maarmi kartid, booska hilibka uu ku galaayo maalinta ku qadaysid. kadib waxaan kusoo shubanayaa, asaga saasuu diyaar iigu noqday, waa bislaas, wuu ii bislaaday. hadda waxaan kusoo shubtay meesha waa mushroomkaas, bacdaasuu ku jiraa, wax kale waa laga yaabaa inuu ku jiro. mushroomkaana dabka saaraya 10 daqiiqo ayaan isagana mataqaanaa karinaa insha allah. wax yaraan kusoo shubtay oo mushroom dhinacaankii kii hore iyo dhanaankii iyo wixii meesha iigu jiray aan mushroomkana ku darsanaa. wax kaleeto uma baahna in aan kusii karo. mushroomka uu ii soo bislaaday, diyaar uu ii yahay. hadda waxaan kusoo darsanaa basbaaska waaweynaa oo aan soo jarjaray. basbaaskan kuleel yaroo meel dheera buu leeyahay, aada uma kulula. waxaan kaloo kusoo darsaday waxaa waaye celery oo aan isagana aan soo jarjaray. waa qudaar kale, isagana waa geed kale oo qudaar ah oo sida basal baarto kale u dhaadheer oo aan soo jarjaray, iyo basal baartii iyo barsaliga kamsar caleen. bug barsaligu ogyahay, laakiin kamsar caleenta isku dhadhan maaha, isku carafna maaha, aad u kala duwan. wax yarna wuu ka balbalaaran yahay. kamsar caleenteeda iyo barsaliga caleentiisa, caleenta barsalida wax yar balbalaaran, isku carafna ma ahan, isku dhadhanna ma ahan, way kala duwan, aad iyo aad u kala duwan yihiin. intii haddana iyo mushroomkii oo meesha iigu jiray aan wax yar isku shiilaa. waxaan ku daray oodan arkaynin wax yar oo soy sauce aan markii hore isticmaalayay, iyo wax yar oo cusbaan ku daray, wax kale ma ku darin. waa kana hadda waa iisoo diyaarba, iisoo noqoto qudaartii. dusha waxaan ka saaranayaa oo la rabaa in lagu diyaariyo oo dhadhan ay siiso oo lagu cuno qudaartii yareyd ee aan soo shiishay baan dusha mataqaanaa kasoo saartay. kadibna saana mataqaanaa u cunaysaa, masha allah tabaarak allah. aad iyo aad cuntadan mataqaanaa healthy u tahay, caafimaad u leedahay, ka faa'iideysta insha allah. waqti badan kaama qaadanayso, waa 1 2 3 waaye. waqti mana taagnaanaysid, waa waxaadan u taagnaanayn haddana caafimaad. waxa aan dusha kasoo shubay waxay tahay waa fresh barsaligii, kabsar caleen geedkii ka oo fresh aan soo jarjaray. aad iyo aad amaadsantiin daawashadaan daawanaysa. please haddii aan ugu cusubtahay naga ilaawi subscribe-ka inaa noo saartid, gambalaalkana aa furtid saa ogaatay wax walba aan soo gelin, like iyo share-tana dhanka dhawaaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.